nicamka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah aan tirakoobka lahayn fahamka iyo tadabburka qur-aanka kariimka ah oo allah tabaaraka wa tacaala uu ku sheegay wuxuu u soo dejiyeyba inay taas tahay sida rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن آياته للروحه ومعناه هذا اللي فهمه كدبنا اللقوة أنا قاته اللقوة عمل فله أيها إلهي أسود الشيء تبارك وتعالى يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة فشجوت طورا ثم طورا باسما وعززت ثم بدت عليك المسكنة متفاخرا حينا بسنة أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ramadaanka aan ugu talagalnay la magac baxay fi rixaadi ramadaan oo ay marti inoogu ahaayeen culamaa u diin kala duwan oo maaragtay ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan culimada ugu tunka weyn ee magaalada joogta. Sidaad insha Allah taala aad horay xalqadii hore ugu soo aragteen, xalqadana waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shantii mixwar ee uu barnaamijka ka koobnaa. waxa محوركن أما حلقة وحضيف نواه مشايخ عصوب وحكوك شاعل أسامة وحكو حجة فضيلة الدكتور آدم شيخ علي وحكو حجة الشيخ موسى داهر رويس وحكو حجة دكتور عمر وحكو حجة دكتور عبد العزيز علي أحمد. إن شاء الله تعالى شنتي قضبان ربنا إن نقدبنه قضب ككوبان. محور ككوبان وحاوي محور تدبرك sidaad ogsoon tihiin bishani waa bishii Ramadaan, waa bishii uu soo degay Quraanka Kariimka ah, waa bishii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu Jibriil uu Quraanka la mudaarasayn jiray laba jeer, waa bishii ay dadkii saalixiinta ahaa iyo saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay badin jireen in Quraanka la akhriyo. Quraanka si gaar ah ayay bishani ula leedahay calaaqa gooni ah. Marka anagoo ka faa'iideysanayno arintaas waxaan ugu talagalnay bal in lagu tadabburo Quraanka Kariimka ah, inay culimada noo yara bildaamiyaan aayado Quraan ah oo kala duwan oo yaani hadba xulashadooda ah qof walba iyo xulashadii ah. marka waxaan rabaa inaan ku bilaabo fadiilada Sheekh Ali Usama. fadiilada Sheekh, Quraanku wuu baaxad weyn yahay, wuxuuna ka kooban yahay ilaa dhowr kun oo aayadood. marka aayada yaad isleedahay daawadayaasha barnaamijkan la socda waxaad ugu tala gashay oo isleedahay qalbigaadana si gaar ah ay saameyn ugu yeelatay, waana la wadaagi kartaa dadweynaha muslimka ay ku daawanayaan. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما هتنتهى شيخ عبد الحليم، إلهي تبارك وتعالى هينجا أقبل الصونك runtii maalmo aad u qiimo badan aan ku jirnaa, aad muhiim u ah bishaan Ramadaan. ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligeeda qur'aankii uu ku soo dejiyey waxaa ka mid ah fi suurati albaqara aayad ku jirta aad ii soo jiidatay, isagoo qur'aanku uu de kulligiisba uu wada mucjiz yahay, mar walbana uu meeshii laga qaataba ay aad u qiimo badan tahay.
يعني haddana maadaama waqtigu xadiday hal aayadna la yiri waxaan isleeyahay aayadda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan fakradaas yartaan rabaa inaan waxayr isdul taago iska gudagelaya baan filayaa waxa weeyaan bishaan ramadaan sida aayaddaa tilmaamayso waa bishii qur'aanka la soo dejiyey waaye qur'aanka kariimka ah 114 aynu habeen iyo maalin akhrino ilaahay tabaaraka wa tacaala biliha oo dhan isagaa wada leh ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaab illahi laakiin waxaad moodaa bishan maziyada ay leedahay rabbi tabaaraka wa tacaala kalaamkiisa oo runtii aad u qiimo badan oo nuur iyo shifaa iyo wax badan lagu sheegay soo dejintiisa rabbi wuxuu si gaara ugu maamuusay bishaan ramadaan ma aha qur'aanka kariimka oo keliya xataa kutubta samaawiga hoo idil suxufi ibraahim injiil tawraat furqaan kulli ilaahay tabaaraka wa tacaala sida ibnu kathiir uu markuu aayadda uu tilmaamayo uu leeyahay kulli kutubta samaawiga hoo idil waxay soo degeen bishaan ramadaan qur'aankeena kariimka markan u soo laabanno waxaa laga soo qaaday lawxulmaxfuudka waxaa la keenay isagoo jumlatana samadan samaa dunya markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa kariimka calayh afdal asalaati wassalaam si hadda baahida jirta iyo in yar nebiga loogu soo yaryaraynayey maalinta ama habeenka sida gaarka qur'aanka loo soo dejiyey bishaana barakaysanna ku dhex jira waa habeenka leylatulqadriga awaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ina anzalnaahu fii laylatin mubaaraka qur'aankii waxaan soo dejin habeen barakaysan waa habeenka la yiri wuxuu ka khayr badan yahay 83 sano iyo weliba bilo taqriiban ina anzalnaahu في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر marka kun bilood bay ka khayr badan tahay idan marka waxaan oran karnaa maadaama qur'aankii bishaan la soo dejiyey si gaaran loogu sii maamusay habeenkaas barakaysan in marka qur'aankii la qaabilo oo bishaan salafu hadihi الأمة min الصحaabati والتaaبiciina man bacdahum waxay aad ay ihtimaam u siin jireen xataa culummadii iyo salafka culummadoodii kutubta iyo diinta inteeda kaleeto waxay aad ugu soo jeesan jireen qur'aanka maxaa yeelay waa shahrulqur'aan waa in qur'aankii la akhriyo qofkii horay qur'aanka u xifdiyey waa fursaddii uu ku muraajacaynayo maxaa yeelay nebigu sal ly slam kii u lahaa yacni muraajacada qur'aanka iyo tacaahudkiisa akhrintiisa aad u badi marka bisifa khaasa waxaan uga dhex diri lahaa macallimiinta iyo ardada qur'aanka horay uu xifdiyey inay muraajacadii bishaan oo kale aysan la dhaafin oo calaa xasbi taaqa qofka hadda awooddiisa 10 juz waa la akhriyi karaa inuu akhriyo hadduusan akhriyi karin wiig ku dhammee haddaadan ku dhammayn karin 3 maalmood inaysan uga yeeraan qofka sida quraada ay tilmaamaan oo kaleeto ninka qur'aanka mar xifdiyey inuusan aysan xisibkiisa ama raatibtiisu aysan ka yaraanin maxaa yeelay fadiilada lagu helaayo qur'aanka ma sahlan haddii la yidhi halkii xaraf 10 xasanaa lagaa siin waalxasanatu bicashri amhaaliha man jaca bilxasanati falahu 10 amhaaliha baa ilahay leeyahay soo maaha in marka haddii aad akhriso hal beyj maalin dhaweytaan waxaan xisaabinayey hal sadar oo suduurta qur'aanka beyjka taqriiban 15 sadar buu ka kooban yahay halka sadar baan waxaan isku dayay inaan tiriyo inta xaraf uu ka kooban maxaa yeelay nebigu waatan uu leeyahay calayhi afdal salaatu wasalaam laa aqulu alif laam mim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun waalxasanatu bicashri amhaaliha marka ku dhufso adi marka waa runtii waa xasanaad yacni qofka muslimka ah mu'minka uu wax badan uu ku heli karaayo waa inaan marka aad uga shaqaysiino wakhtigeenna bishaan aanu uga faa'iidaysanno inaan qur'aan badan akhrino ku tadaburno macnihiisii fahanno
reerkii iyo ku tukano taraawiixda qofka xataa hadduu wax kala waayo taraawiixda dadka maadaama waagii horeeto oo dee sanadihii hore masaajidda lagu tukan jiray hadda laakiin waa fursad aad moodo si gaara in loo siiyey ay u haystaan dadka qur-aanka hore u bartay iyaga keliya marka fursadda khaas uma aha maxay iyagu qur-aankii dushay ka akhrinayaan ilaa hore u soo xifdiyey kii 5 juz xifdiyey 5tiisiibuu korka akhrin uu ku tukan 10 juz 20 juz 30 juz qofku ilaahay u saa inuu xifdiyo marka iyaga keliya maaha xataa dadkaan qur-aanka xifdisnayn waxay samayn karaan si taraawiixdii iyo qiyaamkii waatuu nabigu le qofkii man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi soo ma ahayn si marka uu helo ajarkaas ma oranayo aniga qur-aankii ma aqaano ama ma xifdisani dee seen ugu tukadaa marka waxaa laga inuu iskaba fuudaystaba in marka uu kitaabka intuu qaato xataa uu ka akhriyo isagoo fii nafsi waqti taraawiixdii tukanaya way u furan tahay sida insha allahu tacala culimmada iga dambaysana ay oran doonto insha allah bishan barakaysan aayadda ama qaybteeda hore un baan uga kaaftoomi lahaa runtii tadabbur badan iyo waxay u baahan tahay jazakum allahu khayr بارك الله فيكم فضيلة الشيخ رانتي آيات داسي وآيات وباهن تدبر قوني ولبا خاصة بشنا كتشرو ما دام أي كهل ليسو قرانكي يولبا بشن سودة جدا وسودة جي وحان رباينا نقود بفضيلة الدكتور آدم شيخ علي فضيلة الدكتور قرانك سيدو شاعلي بشاقي لما كلا حولان كرو دمانتي وهو ذا معجز لكن هذا التحدي بمشي يالو آيات يعني هذا سلاذا هاي سيجارة يكون سامي سامر كاد آخرين أو سلاذا هاي وحاوي وقفية تأمل باكوتشره شعلان لهايدنا إن اللي ذاك تدوينها الصومالية ده مسلم كا واته تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. إلهي بما الله سبحانه وتعالى قرآنك كريم كأه آيات كستأقفك أخريه معاني أن لكوبي كريم أي حبار سنتهي وحنا دوجع الله مركة آيات آد إيسو جيدته مركزته مركان أخريه إيسو جيدته معاني آد بضلنا إنا حبار سنتهي أي ضبطه يا رب إن شاء الله تعالى إن سوب بندقه أما أخريه إلهي سبحانه وتعالى وحليه في آخر سورة الروم آيات قدام بيس فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. النبي عليه الصلاة والسلام أي وحال أمر يا إنه صبر لا إماده صبر كاسنا ثبات يكو سجنان مبدئي إلهي سبحانه وتعالى أسو ديبي التوحيد كجندق أبوها إنه كالصبر قال الشديسة إنه كالصبر ضدك إنه برا إنه كالصبر إنه كالرقمه إنه كالصبر دبك كسوغارا أي ربك سبحانه وتعالى آيات فريا نبينا عليه الصلاة والسلام وحين نبينا لفرنا أننا لفرنا هي هدي أنا أمديسة صلى الله عليه وآله وسلم. فاصبر مبدئي مركز قف وكسبره إن وعد الله حق بلنقاتك إلهي سبحانه وتعالى وبلنقاضي إنه دينتان أقرقاره بلنقاتك الله وبلنقاضي سبحانه وتعالى إنه كرامي أولي ديسة بلنقاتك إلهي وبلنقاضي سبحانه وتعالى عدة بريضو إنه بريضك أقبله بلنقاتك الله وبلنقاضي سبحانه وتعالى غفتنا مدافع ويديسته إنه دنبيقي صرافه بلنقاتك وربي بلنقاضي سبحانه وتعالى إن دينتان محفوظ أيتهي وادب إن وعد الله حق كدبنا آيات قيبت هذا الدنباء ربي وحليه سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون كو أهل يقين كأنا أهين on ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdigiisa waciidkiisa aanan yaqiin iyo dhab u aaminsanin yayna ku badowsanin yaay istikfaaf iyo fududaysi ay kugu samaynin yay ku digdiglaynin yay ku khaldin
ربنا سبحانه وتعالى النبي وحوشه صلى الله عليه وآله وسلم الثبات على المبدأ بالصبر وعدم إطاعة هؤلاء وليهاس استخفافك إنay عقوشة iyo mabaadi'da aan xambaarsannahay ay fududeeyaan oo annaga intay noo digdiglayaan kadibna ay waxa ay wataan oo baatilka ah ay noo qurxiyaan yayna ku kedinin oo ayna ku fududaysan ayuu nabigana amarku ku siinaa sallallahu alayhi wa sallam mufassiriinta al-Imam Sa'di iyo rag badan markay ka hadlayaan aayadan waxay tilmaamayaan qolyaha dacfiga iimaanku ku dhacay yaqiintooda ay hoos aad ugu dhacday kadibna markuu iimaankooda daciifay yaqiintan ay hoos u dhacday waxay keentay khifatul uquul aqligoodii inuu noqdo aqli aad u hooseeyo ma kastada inay ku biiraan ama ay ku darsamaan kuwa ayaga dhag jara qawsiina iyo rabbiga subhanahu wa ta'ala haddii marka kuwaas ayaga caqligooda hoos u dhacay ay ku badowsadaan waxaa dhacaysa in martabada iyo manziladii ayaga ay joogeen aad u degto nabigeena sallallahu alayhi wa sallam diintan inay maxfuud tahay diintan inay musaan tahay diintan inay insha Allah ta'ala tastamir ay weligeed soconaysa markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam xadiis imaam Ahmad soo saaray fi sahih wuxuu leeyahay min xadiis Tamim ad-Dari nabigeena wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam la yablughanna هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار دينتان انتو هبينك إيمانك جارة وجاري أو جاري أو جاري أي نبي صلى الله عليه وسلم إلهينا سبحانه وتعالى قولي دوك سميسا مدبوش كسميسا لما ضوك متقو إلا دينتان وجليا دينتان إسلامك وحقه ربي سبحانه وتعالى قولي كست وجليا قلنت أو ربي قلنا سبحانه وتعالى وعزي أما كقلو وقفك لو قلنا عزها كقاتو أما ذلي هكقلو عزي وربي سبحانه وتعالى دين تسكر وقاضي يمبدأ يسود جي ذلي وكد لينا محوها على كفرك يعد الرعضي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مركة آياداس يدأه آياد إسلاذهي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون تفاسيرت والنبي نكبح صلى الله عليه وآله وسلم وحنين كرنا إنه حديث كان كمديه لا يبلغن هذا الدين أو هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار قصة سومرتي أيان آدو حسوسته حلي الجامعة الإسلامية أنجوغني أيان شيخ هو جليلة أيان نويمت مركو نويمت وحنا قراها اللي عزة الدين الثبات على المبادئ إيو diintan in loo shaqeeyo ayuu nagala hadlay nin marka maghmuuz ahaa insaxa tacbiir oo annaga aan ku yara tilmaami jirnay mabaadi'dan reer galbeedka inuu aad uma raacsana laakiin u yara muxuu ahaa nugul ayaa soo booday oo marka hadal shubha ayuu sheekh ku tuuray shubhadii markuu ku tuuray sheekha marka wax kale kama hadlin qara'a qawla allahi tabaaraka wa tacaala fasbir إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون هل كآيات أي أخري منك إستجع حقيقة ودرالي كاري مرك آيات داس وآيات آد معنا بدن آيات داس وآيات قفك ثباتك حالتك سومرته ولي بحل كان أنكسو كانوا باطلك وبالال بدن يا شيء باطلك أود بدن إنه اسمودي حلقان وحلقان آيات داس إيه آياتها لمتك قفك إنه دائما وأبدا قلبي كيسة يعرب كيسة يحمله إنه كقدقمه دائما وأبدا من خيال ديسة مسكح ديسة يكون تاجناته لو بهاي أيام كل إسلامي هاي إله حكى سبحانه وتعالى إنه دين تنوسجه آيات داس هي آيات كلمتك هي قرآن كنا كوك عبل في الغرب نجديه بشان رمضان إله سبحانه وتعالى سيدنا رب الله بي وسوى ناس نوجب جبيه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول مصطفى بارك الله فيكم فضيلة الدكتور رنانتي وآيات آد قيمة بدن وي وما ركتي وعدي قاس إله سبحانه وتعالى ويابوهي إسلامك يا مسلمين تبه إنه دبوبها يا رموبي دونة السنة إن شاء الله تعالى وندبوبي به وحن ربها دينا نوجد بفضيلة الشيخ موسى فضيلة الشيخ
كلي مسيرتك مع القرآن وحليا بيني آد ودرتهاي ولي بحافل أي تهاي مركا أنت سنضاد القرآن كلا نولي آيات دي استري runtii aayadan markaan kolba akhriyo ama aan soo dulmaro saameyn gaar ah ay igu yeelataa oo duruus gaar ah ayaan mar walba ka faa'iidaa oo isleedahay ummadda wada wadaagi kartaa waa aayade tafadhal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد runtii qur'aanku kulligii waa hidaayo شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وقرآن هداية حنبارسان وعد حنبارسان مصالح البشرية حنبارسان وحيد بالهادية آخر وكريبية آيات كسر مركز آخر سبحانه وتعالى آياتك لك عجب بضن لكن مناسبة هذا وحان وقتها لقلي آيات رقابا في سورة النازعات قول الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كل يوم موسم كان وجرنا هو موسم كي بشي رمضان وموسم عباده وبالبركة وبالخير وبالعبادة أدومها مؤمنين تاهي وباهي هي تنافس إني أقلان سيدي ربح بدن ولا هران عمري جوا محدود قف كانوا حويا رأس مال كيس وعمري كيس إلهي سبحانه وتعالى نمضى المسلمين توحواد وقونية لي فضائل قونيه مديه كالآن للسنين إنه إلهي أوقات فربضا وبركة سنة إلهي أدوري حق عبادة سيدة رمضان كوكالي marka qofkii marka mu'minka ah taacadii salaad haday tahay dhikri haday tahay qiraa'atul quraan haday tahay tadabburkiisi haday tahay waa matlub inuu la yimaado sida darteed marka qofka mu'minka ah waxyaalaha matlubka waxa kamid ah inuu naftiisa muraqabeeyo ilaaliyo waxa ka soo fulaya oo ka imanayo ka baxaya inta uu ficilka sameeyay ku hadlinin inuu fakaro waxa uu ku hadli doonaa ama uu sameyn doono muxuu ka rajaynayaa waxa Ilaahay raali geliyaa ma yihiin oo marka uu ku muto Ilaahay radihiisa iyo jannadiisa bise waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aragelinayo uquubadiisa uu ku mudanayo taasna marka waxa keenaysa muraqabada marka inuu ogaado dareemo Rabbi tabaaraka wa ta'ala inuu daalacanayo u jeedo inuu dareemo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa bari istaagayo oo loo xisaabin doono wax yar iyo wax badan intaba inuu dareemo Ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa inaan lala qaabili karin waxaan Ilaahay raali ka ahayn ee marka uu xishood garo si uu uga joogsado waxyaalaha Ilaahay caradiisa iyo uquubadiisa keenaya sida darteed marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aadamihiisa mu'miniinta ku baraarujinaya aayada marka Ilaahay wuxuu leeyahay wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa yani wuxuu ka cabsaday maqama rabbih saddex tafsiir way ku fasireen culimadu sidan hadda xoogaa soo dul maray maqaamku inuu yahay مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة للسؤال والحساب استاقوا إلهي هرتي سهر جوك سنة يبري أولا يسيي إلهي أن لو دحينين وحتر جمانا إنو دحينين ومركا وهور استاقنا السؤالات عمري جيسي وحلقا ويدينيو عمل كيسي وحلقا ويدينيو علمي جيسي وحلقا ويدينيو شباب نمديسي وحوقيسي وحلقا ويدينيو هذا لا حسابينيو حسابتنا وياك إلهي نو فضودي تا إنو كعبسدو ee marka wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku badbaadi lahaa oo marka diyaarsado wixii Ilaahay caradiisa uquubadiisa geyn lahaa oo ka joogsado taas waa mid
waxay kala noqon kartaa rabbi tabaaraka wa tacaala addoomihiisu kama qarsoona, cilmigiisu addoomahoo dhan buu koobay, camalkiisoo dhan buu og yahay, wax kastana waa loo xisaabanaya, ilaahay hortiis buu la tegayaa. aragtida rabbi u jeedo subxaanahu wa tacaala inuu dareemo ee marka uu ka joogsado, inuu ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa dareemo oo marka uu ka xishoodo, siduu nabiguba uu yidhi sala allahu calayh wasalam, istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa, ilaahay ka xishooda xishoodkiisa dhabta ah. saddexdaa arrimood markay qalbigiisa qofku ku dhalato, laa shakka qofka mu'minka ahi gadaal buu u degayaa oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala caragelin lahaay oo dhan ayuu dib uga joogsanayaa. waliajli dalika bacdu ahli ilcilmi bitafsiir waxay leeyihiin aayaddan waxay ka hadlaysaa qof hamiyey inuu macaasi iyo xumi iyo waxyaalaha dembi iyo ismi ah inuu sameeyo, ee markaa xusuustay maqaama rabbihi maqaamahu amaama rabbihi xusuustay, horjoogsiga oo ilaahay horjoogsanayo, ee markaa ka tegey oo gadaal uga laabtay. waliajli daalika qofka saas oo kaletaa nabigu wuxuu noo sheegay in loo qorayo xasana kaamila, waman hama bisayi'atin falam yacmalhaa katabaha allaahu cindahu xasanatan kaamila. qofkii sayi'o hamiya ee ka joogsada makhaafatan min allah, fii bacdi riwaayaat ba waxay ahayd inamaa tarakahaa min jaraaya, wuxuu uga tegey aniga dartay, saa uga joogsada, katabaha allaahu cindahu xasanatan kaamila, xasano kaamila baa loo qoraya. qofka marka mu'minka ahi aayaddaasi had iyo jeeraale inay qalbigiisa ku nooshahay oo mar kastoo wax samaynayo uu fiiriyo maqaama rabbihi, waxa uu samaynayo wax ilaahay agtiisa xasano u gudbinaya miya mise waa wax sayi'a looga qorayo lagu ciqaabayo, inuu fiiriyo oo naftiisa had iyo jeera la xisaabiyo, ee naftiisa uu dafroo celiyo, hawadeedana uu ka celiyo waxa ay jeceshahay oo ilaahay macaasidiisa iyo dunuubtiisa ah, inuu had iyo jeera la ku jiro aad iyo aad bay u habboon tahay. nasalu llaha tabaaraka wa tacaala an yajcalanaa miman yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana, waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasubxaanaka allahuma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk. baaraka allahu fiikum fadiilat sheekh. runaantii waa aayad aada saameyn u leh run ahaantii, xilli walbana taagan oo maaragtay qofka muslimiinta qofka muslimka ah ugu filan wacdi iyo waano alla ka cabsi inuu mar walba uu muujiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala is hortaagiisana uu mar walba xusuusto. fadiilatu doctor, bishii qur-aanka ahayd baanu ku jirnaa, ummaddu ay qur-aanka ku wada howlan yihiin, qof walbana wardigiisii iyo qiyaamuleylkiisii iyo maaragtay iyo siduu qur-aanka u xifdin lahaa iyo u muraajacayn lahaa. waxaa intaa dheer maaragtay tadabburkii. aayadeed is leedahay markaad akhriso, intaad hadda akhrinaysa qur-aanka, markaad soo martay way ku dul way ku qabsatay oo in badan baad dul istaagtay. tafadal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أستاذ عبد الحليم جزاك الله خير. أدعو كومات علينا هي برنامجك يسدو كالت الإحسان ميديا إني نوصل رجاليا كلن كان ذاتك أهل خير كا ولا له اللو ذاقان وحخيرة رنتي فرحدي أسدو كالا إن الله فدي الشيخ موسى طاهر ومعلن كي مرحلة الثانوية أصول الفقه أصول التفسير إيسو دقي مركز عاصنا سيقوني هاي ذيك يوم هاد علنا يا الإحسان ميديا انت سدان كسو قدبو runtii culimada siday sheegeen qur-aanku kulligiis waa wada mu'athir, waa wada mowqif qofka qabsanayo. laakiin xaqiiqatan markaan qur-aanka akhrinayo meelaha aad ii saameeyo waxaa ka mid ah bidaayat suurat alqasas. suurat alqasas inta ugu horeyso qisada nebi muuse calayhi salaatu wassalaam, intaa yara ee ugu horeyso suuradda waxaa ku jira dhowr mowqif oo ka mid ah qisada nebi muuse calayhi salaam oo aana ku jirin qisaska aan dhahay qaybaha kale ee ka mid ah qisada ee suuradaha kale ku soo arooray.
sida suuratu shucaraa ama suuratu taaha ama suuratu alacraaf waxaa ka mid ah marka hooyadii ilaahay uu amrayo oo ay biyaha ku tuurayso iyo gabadhii walaashiisa oo laga daba diray waxaa ka mid ah qisada ninka qibdiga siduu u dilay si ay u dhacayso waxaa ka mid ah safarkii uu hijrada u galay ee xagga iyo madyan uu ku aaday iyo biyaha madyan markuu ka soo dhacay iyo gabdhihii halkaas uu ku saaciday iyo heshiiskii shaqo ee uu galay ee ma aragtay 10 ilaa 8 sano u dhaxeeyay qaybahaas suuradaasa khaas la ah marka aayad ka mid ah maqtacaas koowaad oo suuradda yaa runtii aad ii saameeyo marka aan marahayo waxaa weeye qowlullaahi tabaaraka wa tacaala wa qaalat liukhtihi qussii fabasurat bihi can junubin wahum laa yashcuruun nebi muuse hooyadii ilaahay wuxuu ku amray in biyaha ay ku tuurto markay biyaha inay ku tuurta la amray waa hooyo qalbi waxay xambaarsan tahay hooyo ilmihii ayay ka walwalaysaa si walba u yaryahay ilmaha in walbuu la egyahay xitaa hadduu hal sac dhalan yahay hooyada wuu ku wen yahay xitaa aabbaha waxaa laga yaabaa inay saa u saameynayn laakiin hooyadu wuu xanuujinayaa markii la amray in biyaha ay ku tuurto waxay u baahatay qof sii dabagalo oo warka ka keeno markay hareeraheeda eegtay waxay aragtay gabadhaas walaashii ah inay tahay qalbiga hooyada raxmadiisii jacaylkiisii iyo daryeelkii uu ilmaha u hayn lahaa qalbiga kaliya soo mateli karo gabadha walaashii ayay ku aragtay nabi haaruun calayhi salaam waxay sheegaan mufassiriintu inuu 8 sano ka weynaa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam maca daalika isaga uma yadirin qof kaloo ciddi ka mid ah uma ayna xil saaran waxay u xil saaratay gabadha walaashii ah culimada qaar marka halkaa waxay ka istinbaadeen in gabadha walaashaa ah ay tahay qalbiga hooyada qalbiga ku soo xigo ee jacayl ku hayo bal qof walba naga mid ah marka dib ha u dhugto ama dib ha u milicsado gabdhaha walaalihiisa gabdhaha walaalaha ah waad qofka hooyada markii la soo dhaafo qalbiga ku xigo ee ku jecel ee ka fakarayo bal qof walba oo dhageysanayo ha ka fakar gabadha walaasha ah meeqay kula soo hadashaa meeqay ku soo wacdaa meeqay ka warqabtaa waxay ka warqabaysaa ay ku soo wacaysaa min ajli adiga inay maartay xaaladaada ogaato gabdhuhu sidaan la socono way masayraan maca daalika waxay jeceshahay walaalkeed inuu gabdho badan guursado oo xaasas badan uu yeesho oo ilmo badan uu lahaado ayay jeceshahay waxay ka fikiraysaa walaalkeed inuu noqdo ninka ugu qiimaha badan mujtamaca ninka ugu aqoonta badan ninka markii meesha la marayo isha ay si fiican u qabanayso gabadha walaasha ah inta badan waxay ku soo wacaysaa inay xaaladaada ka warqabto ragga walaalaha waxay isku wacaan inta badan xaalad taagan qaaraan la ururinayo bal iska waran in la is yiraahdo laakiin gabadha walaasha ah si khaas ayay marka waxay sheegaan kitaabka la yiraahdo muhaadaratul udaba wa muhawaratul albulaga wa shu'ara wuxuu sheegayaa Raghib al-Asbahani in xilliga Xajaaj gabar laga qabsaday 3 walaalkeed iyo waxa la xiray ninkeedii iyo wiil ay dhashay marka waxa lagu yiri midkood dooraha lagu sii daayay marka hadalka caanka ahaa bay tiri الزوج موجود nin waa la heli karaa bay tiri walwaladu mawlud nin waa guursan karaa haddaan nin guursadana ilmaan dhalaya wiil waan dhali karaya wal akhu mafquud laakiin hooyo dib dambe iguma dhalayso walaalkan marka intuu la yaabay ayaa waxay sheegaan maartay Xajaaj inuu u fasaxay saddexdoodiba uu u fasaxay marka aayadaas quraanka ah waqaalat li ukhtihi qussi waxaan raadiyay bal wax ka hadlaya muhaadaraad in laga duubay runtii muhaadaraadka af Soomaaliya ku baxo ma arag hadda ka hor cinwaan xuquuqda gabadha walaasha looga hadlayo si khaas ah maxay yeelay waxay u baahan tahay daryeel waxay u baahan tahay ogaasho waxa weeye marka inta raadinay waxaan arkay ahadul mashaayikh oo biluqa carabiga ku duubay luqada carabiga ku duubay muhaadara la yiraahdo macdiratan ukhti al-ghaliya runtii muhaadara aad u saameyn badan weeye waxaan ducaada laftooda aan u dardaarmi lahaa muhaadaraadka noocaas bal in la faafiyo dhamaantayo inta maartay dhageysanayso muslimiinta ah oo ragga ah gaar ahaan waxaan dhihi lahaa bal nin walbow dib u eeg gabadha walaasha ah ee ku jecel ee qalbiga hooyo xambaarsan haday hooyada dhimatay kaliya qalbiga aad ka heli karayso qalbi hooyada
koobi qalbiga hooyada ah waa walaasha waay walidaalika ayay hooyadiis u dirtay waqaalat liukhtihi qussihi fabasurat bihi can junubin wahum laa yashcuruun marka gabadha yarta ah waxaa aad ii saameeyey oo runtii aan u soo doortay aayaddan khatarta ay nafteeda gelisay say khatar nafteeda u gelisay say u dabagashay say ugu dhowaatay say warka u raadinaysay iyo dakaaga maaragtay hooyadeed sida ay ugu dooratay marka bal dhammaantayo inaan isku dardaaranno guud ahaan in qaraabada iyo walaalaha la xiriiriyo gabdhaha walaalaheenahan aan gooni u ogaano وجزاكم الله خير وصلى الله بارك الله فيكم فضيلة الدكتور runtii waa istinbaad cajiib ah iyo dhiraandhirin xuquuqda walaasha ay kugu leedahay laga soo dhiraandhiriyay aayaddaas nabi muuse iyo walaashii gabdhaha walaalaha ahna waxay ku fadhiyaan ahamiyad gooni ah waana godob in ahamiyadoodii la siin waayey marka loo yimaado muxaadaraadka iyo hadal jeedinta إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن دتكم كبر رويان هذا كذب كلمة داس قيم كذب إن شاء الله وحن أسوق بيا فضيلة الدكتور عبد العزيز دكتور القرآن ككريم كل جسوا مؤثر سيدا أي علماء الشيئين آيات لو دور سنكرنا ما تشرت لكن اسك التحدي جن هذا تاجنا أهبل آيات دي استري ودول استاكتي انت هذا رمضان كي اما جودهان نولش هذا سامين تجارك هو يا لتوا عيده تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى يا مهدله هي ولا لها برنامج كان سوق بنقابيي aan filahayo insha allahu tacaala inay ummad badan ka faa'iidaysan doonto leanna waa barnaamij waqtigiisa uu gaaban yahay nafcigiisana uu badan yahay culimmadana way soo hadleen khayr allaha siiyo fawaa'id fara badan bay ka hadleen oo ku saabsan aayadihii ay ishaareen ilaahina subxaana wa tacaala ajirka kama qadiyo bishii ramadaan ayaynu ku jiraa ee barakaysnayd tobankeedii hore bishanna waa raxmad iyo naxariis iyo dembi dhaaf ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu noogu nimceeyey uuna ku mahadsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala awalan wa aakhiran inuuna soo gaarsiiyey annagoo noolna aan soo gaarnay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo soonkeeda sida waafaqsan sharcigiisa uuna waafajiyo qiyaamkeeda uuna ajirkeeda naga qadinin uu naga dhigo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan uu ka xoreynhay naar jahannama walaalayaal qur-aanka uu gudan weyn yahay tadabburkiisana waa muhim aayadda kasta aad fiiriso mar kasta aad gadaal ugu noqotona macno fara badan baa kaaga daahirayaa cajaa'ibtiisana ma dhammaanayso lianna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku hadlay oo masaalixda khalqiga oo dhan garanhaya waana ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo uuna siiyey kitaabkan ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdigiisa iyo khidmadiisa iyo ku camalfalkiisa allahna waafajiyo waxaan rabaa in aan ishaaro bini aadamku waxa uu u baahan yahay towfiiqu u baahan yahay oo ilaahay inuu waafajiyo khayrka si uu ilaahay agtiisa dhowaansho iyo raalli ahaansho uga helo towfiiqdana ilaahay xaggiisay ka imaanaysa waxaan rabay markaa inaan tilmaamo laba aayadood inaan isku xiro oo ka warramayso asbaabta towfiiqda ah ee culimmadana ishaareen raximahum allahu tacaala aayadda u hore وحويا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما آيات لنا ونبي الله الشعيب عليه السلام ويري الله سبحانه وتعالى وكحكا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آيات أخرى الله سبحانه وتعالى وحيري إن يريد إصلاحا من أسباب التوفيق حسن القصد أسباب التوفيق waxaa ka mid ah ruuxa inay niyadiisa wanaagsan tahay si uu khayrka ku gaaro niyadiisa hadday wanaagsanaato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu arrinkan ula jeedo ilaahay wuu waafajinhayaa khayrkaasi wuuna ka dhigayaa wax laga faa'iidaysto isagana uu ka faa'iidaysto marka xusnul qasdiga waa muhim rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawaa haddaad wax wanaagsan aada niyooto
oo khayr aad niyoto ilaahay dartii aad u niyoto ibtiqaa'a mardaati illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay towfiiqda wuu ku siinaya ilaahay towfiiqda wuu ku siinaya aayaddaasna waxay ishaaraysaa labada isqabtaa markii ay shiqaaq iyo khilaaf uu dhexdooda galo oo iyaga dhexdooda xallisan waayaan in loo saaro dad ahlu salaax ah oo niyad wanaagsan leh oo dadkan isku soo dhoweeyo oo iswaafajiyo haddii ay u arkaan maslaxada inay ku jirto inay sii wada jooginna ay go-aankaa gaadhaan taana waxay ku tusinaysaa ay noo caddaynaysaa aayaddan haddii aad rabto ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku towfiiqiyo oo khayrka uu ku waafajiyo keligaa keli wax ma qaban kartida ilaahay kaasho subxaanahu wa tacaala walaaladaadana la tasho si ay kugu tilmaamaan wixii wanaagsan walaalkaasi oo niyad wanaagsan leh iyo adoo niyad wanaagsan leh haddaad arrin aad gorfaysaan ood ka waa hadashaan ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrku idin waafajinaya in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa marka xusnu lqasdi min asbaabi الtowfiiq wakadalika aydan aayadda kalena waxay sheegtay min asbaabi الtowfiiq altawakul cala allah iyo wاtawbatu ilayhi wاlinaabatu ilayhi altawakul cala allahi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad tala saarato oo taladaada u dhiibato ood ogaato bes isaga in la tala saaran hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku waafajinhayaa khayr ku waafajinhayaa haddii towbo lagaa helo iyo rajuuc ila allahi subxaanahu wa tacaala aad ilaahay u noqonayso subxaanahu wa tacaala towbadana aad badinayso waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku waafajinhayaa khayrka rasuulkana sala allahu calayhi wasalam maalin kasta ilaahay buu dembi dhaaf in badan weydiisan jiray waadna garanaysaan taariikhdiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi maalinkii 70 jeer baa ilaahay dembi dhaaf weydiistaa mise 100 jeer axaadiista qaar sidii ku soo aroortay marka ruuxa waxaa la doonayaa hadduu rabo ilaahay xaggiisa inuu towfiiq ka helo inuu ilaahay tala saarto oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu u noqdo uu mathalo aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxan casaa rabbukum marka uu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala u noqdo ilaahay towba nasuuxa waxaadna ka faa'iidaysanaysaa aayadda ay culimmada sheegeen inuu ruuxa wax xawl walaa quwa inuusan lahayn uuna ka beri noqdo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu u xil saaro towfiiqaasi sida uu u yidhi nabiyullaahi shucayb calayhi salaam wamaa towfiiqii ilaa billaah oo laa xawla walaa quwata ilaa billaahi bay mathalaysaa wax xawl ah iyo wax quwo ah iyo wax xeelad ah oo towfiiq aad ku heli karto ma laha ilaa min allahi subxaanahu wa tacaala haddii aad rabto markaa inaad heshana waa inaad asbaabtaadii asbaabtii lagaa helo asbaabtaasi aan soo tilmaamay oo xusnu lqasdi iyo watawakul cala allahi iyo waalinaabatu ilayhi iyo wa istishaarati alculamaa iyo istishaarati ahli lkhayr si aad towfiiqda u hesho markaa maanta waanu u baahannahay ilaahay inuu towfiiqdana siiyo bisha ramadaan ayaynu ku jiraa soonkeeda ayaanu laga baahan yahay qiyaamkeedaanu laga baahan yahay sadaqaanu laga baahan yahay hadal wanaagsan baanu laga baahan yahay waxaasoo dhanna ilaahay towfiiqdiisay ku noqonaysaa hana laga helo niyad wanaagsan kow xusnu lqasdi hana laga helo ilaahay inaan tala saarano subxaanahu wa tacaala hana laga helo inaan ilaahay u noqonoon istikfaarta badino hana laga helo walaalaheen oo ahlucilmiga ah wixii khayrka ah oo dadka aan u sheegi lahayn aan dadka ku hagi lahayn nafteenana hogaamin lahayd inaan kala tashanno aan ka beri noqonno xawl iyo quwo iyo xoog aan annaga nafteenna aan ismudnay oon wax ku qaban karo ilaahay xaggiisa aynu u celinno aan dhahno laa xawla walaa quwata ilaa billaah ilaahay hana waafajiyo khayrka bishan barakadeedana allah hana siiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur'aanka hana fahamsiiyo tadaburkiisa caamka iyo tadaburkiisa khaaskaba ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo yasiro billahi towfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه
أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة. فشجوت طورا ثم طورا باسما وعززت ثم بدت عليك المسكنة متفاخرا حينا بسنة أحمد متناسكا حينا بنفس هينة. هل كنت جذع النخل فاض حنينه فحنى النبي عليه حتى أسكنه أو كنت حجرته الشريفة عندما خبتت خشوعا حين باتت مسكنه أو منبرا بالرحمة